gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geelle oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa guud ahaan shaqaalaha Soomaaliland maalinta beriya laga bilaabo fasax geliyay oo sidoo kalena hambaliyo iyo bogaadeen u diray guud ahaan xaasaskooda iyo shaqaalaha Soomaaliland. 31 bisha 12aad ee 2016 oo dhamaadka sanadka 2016 taariikhda miilaadiga shirkeenan jireed baa wuxuu daaran yahay bandhiga afar qodob oo wargelin hambaliyo bushaaro iyo abuuridda halkudhig sanadka aynu ku shaqeyno wargelinta ugu horeysa noqon doonta in Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaale weynahayga ku wargelinayno naga hay'adan doonta maalin fasaxa oo shaqaalaha dawladdu ay ka nastaan maalin hawleedkoodii siday ugu soo hiloobaan uguna diyaar garoobaan hawsha bilowga sanadka cusub sidoo kale waxaan ku hambaliyeenayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo shaqaale weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda iyo ubadkoodaba sanad wanaagsan oo wacan insha Allah sanad hoodo iyo ayaan aynu qof ahaan iyo qaran ahaanba gaadhno. sidoo kale waxa uu gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geelle uu shaaciyay halku dhig loo cuskan doono sanadka cusub ee 2017 sanadkan aynu ku shaqeyn doono inuu abuuranayna halku dhig sanadkeenana wuxuu noqon doonaa hiilka cadaaladda iyo cilmiga qof walba meesha joogtaba sanadkaasi ha inoo noqdo sanad aynu u heelino cadaaladda iyo cilmiga sanad wanaagsan oo wacan insha Allah. sidoo kale waxaan ugu bishaareynayaa shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland in bilowga sanadka cusub uu noqon doono mid mushaharkoodii la kordhiyay 10% iyadoo in ku jirna xaalad adag isla markaana la filayo imka ahaan xoolaheena hadda xidhay yihiin waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda ugu hambalyeynaya dadaalkii tacabka ay geliyeen in 10% shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mushaharkooda